waxaan ilaahay ka rajaynayaa dadaalkan yarka ah ee aanu bilownayna inuu qayb ka noqdo sidii mar labaad u soo laaban lahaa magacii iyo maamuuska bulshadu lahayd magaca iyo maamuuska kuma soo laabanaya hadal wuxuu ku soo laabanayaa initiatives waxqabad wuxuu ku soo laabanayaa qof walba meesha uu joogo inuu isku dayo inuu noqdo waxtar haddaanu nahay Sombanki waxaa naga go'an idinka ilaahay inaanu industriga dhan aan wax ku soo kordhino si loo helo dad professionals oo dadku hantidooda ku aamini karaan bulshadu lacagtooda ku aamini karto maalgelin markay qaadanayaan ay isku aamini karaan ayaa naga go'an hadii la hadmo waxa naga go'an say arkayseen inaanu sector walba taageerno dhinacayga hadda waxa fadhiya Cabdiraxiim Jaamacadda Banaadir University sanadka hore waxaan la bilownay 1,000 arday inay baraan ganacsigan casriga ah e-commerce waxaan u maleynayaa hadda waxay marayaan 600 mise 700 arday bay marayaan groupkii kasta oo qalin jabiya inta ugu fiican bangigu waa maalgeliya oo shaqo abuur baanu sameynay waxaanu partnership la sameynay shirkadka ugu waaweyn ee keena qalabka caafimaadka wadanka si isbitaalladeena ay u helaan qalab caafimaad oo casri ah maanta fillahi alxamdu bangiyada isbitaallada ku xiran Sombanki waxaan qabaa inay yihiin isbitaallada ugu qalabka fiican ugu agabka fiican ee isbitaallada ka shaqeeya Soomaaliya waayo ka mid noqoshadii iyo ku biiridii aan ku biirnay Ayofi ayaa waxay culimadeena u fududeysay inay structure gareyn karaan design gareyn karaan adeegyo casri ah labada area isbitaallada ka caawina waxa kamid ah wixii imaging la xiriira CT scan iyo MRI mashiinada waaweyn ka bilaabma 300 ilaa 1.2 milyan iyo qalabka diagnosis wax lagu baaro baahda waxbarashada waxaan loo diyaarinay package sanadkiiba ilaa 50 iskuul iyo jaamacadood lagu siinayo qalabka IT-ga ah waxaan u maleynayaa hadda waxaan maraynaa iskoolkii saddexaad ama afraad Umar Samatar buu ahaa oo aanu lab IT u qalabaynay bacdallaahi waxa sabab u ah kamid noqoshada kamid noqnaa Ayofi iyo culimadeena awood u yeelatay inay structure gareyn karaan baahiyo kala duwan ee structure gareyn karaan ha noqoto caafimaad ha noqoto waxbarasho waxaan mar wada ka sheekeynay quality control iyo inaan rabno in khayraadka iyo wax soo saarka wadankeenu isagoo standardka caalamka u aadi karo dibadda oo aanu hadda heshiis la galnay hay'adaas Hope Lab oo aanu bilownay isbitaallada in standardkoodii la fiiriyo waxyaabaha iga qoslinayeen looga sheekeynay waxa kamid ah isbitaalladii u horeeyay tageen waxay fiiriyeen oxygen-ka qofka lagu rakabayo waayo cid baartay oo mashiinkaani inuu oxygen-tii saxda ahaa uu siinayo patient-gan ma jirin mashiinkan waa la keenay waa la rakibay qofka waa la isugu rakibaa nambarkaas la geeyaa laakiin xaddigii mararka qaarkood mashiinada iyaga dib ku ahaa dadkii haddii marka standards aan loo helin caafimaadkii standards aan loo helin waxbarashadii standards aan loo helin maaliyadii meel gaari mayno haddaan nahay marka Sombanki hadafkeenu waa inaanu qayb ka noqono soo noqoshada Soomaaliya waxaanu qayb uga noqonaynaa inaanu noqono bangi professional ku dhagan shareecada qaybna ka noqdo horumarka bulshada nooc kasta ay tahay dhammaantiina waxaan idinka rajaynayaa in aad nagu soo biirtaan oo aad qayb ka noqotaan sidaan u xaqiijin lahayn hadafkaas. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.